dhammaadkii bishii Oktoobar ee sanadkii tegay Xuutiyiinta ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqeen Israa'iil ay la beegsadeen gantaallo badan iyo diyaarado aan duuliye lahayn. khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa ah sababta ay Xuutiyiinta u beegsanayaan Israa'iil. haddaba maxay yihiin Xuutiyiinta? Xuutiyiintu waxay ka soo unkameen ururadii ku jiray colaadda ka dhanka ahayd dowladdii Yemen, balse waxay asal ahaan ku aroorayaan madhabka Zayd oo ka mid ah madhabyada Shiicada. kooxda Zayd waxay taariikh ahaan ku xiriirsamayaan kacaankii Zayd bin Cali al-Xuseyn bin Cali Abi Taalib, kuwaasoo ka soo jeeday magaalada Kuufa kana hor yimid taliskii Umayyadeed qarnigii 8 ee miilaadiga, iyo dhimashadiisa oo uu gacantiisa ku dilay hogaamiyihii khilaafkii Umayyadeed Haashim bin Cabdilmaalik. arrimo badan ayaa ka qayb qaatay soo ifbixii Xuutiyiinta oo ay ka mid yihiin sababo fikir siyaasad, taariikheed iyo juqraafi oo ay ku jiraan sheegashada xuquuqda dadka degan goobaha ay ku badan yihiin Sayidiinta ama dadka loo yaqaano Shiicada. sanadkii 1990kii ayay ahayd markii la abuuray dhaqdhaqaaqii ugu horreeyay ee loogu magacdaray dhalinyarada mu'miniinta ah, taasoo ay dabada ka riixaysa xaqiiqada go'doonka ah ee deegaanada Zayd oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 35 ilaa 40% tirada guud ee dalka Yemen. dhaqdhaqaaqa ayaa noqday mid aad loo xiiseeyay kadib markii ay kordheen dhalinyaro taageersan oo ka qayb qaadanaya dhaqdhaqaaqa kooxda. waxay la koreen nacaybka Israa'iil iyo Mareykanka iyagoo salaadaha Jimcaha ka qaaday nashiidooyin ka dhan ah. maamulka Yemen ayaa dhalinyaradan wax ka qabtay iyagoo xirxiray kadibna la sii daayay muddo kooban kadibna dib ayay ugu laabteen howlahoodii hore. hogaamiyihii ugu horreeyay ee xarakada Xuseen Badar al-Diin al-Xuuti oo uu dhalay wadaad caan ah waxa uu horraantii siyaasaddiisii ku xidhnaa xisbi yar oo loo yaqaan al-Xaq. xisbigani waxa uu 2 kursi ka helay baarlamaanka Yemen doorashooyinkii 1993. Xuseen waxa uu ku guuleystay mid ka mid ah kuraastaas intii u dhaxaysay 1993 ilaa 1997. intaas kadib bishii Sebteembar 2001 iyo dhacdooyinkii xigay sida duulaankii Ciraaq, Xuseen al-Xuuti wuxuu raacay waddo cusub oo ay ka mid yihiin soo nooleynta fikradaha soo nooleynta iimaanka ama imperialismka waxa loo yaqaan, waxaana saameyn ku yeeshay afkaaraha guud ee kacaanka Islaamiga ee Iiraan. dhaqdhaqaaqa dhalinyarada mu'miniinta waxay markii ugu horreysay ku ekaayeen difaacidda xuquuqda dadka ku nool magaalada Sacda oo ah halka ay ka soo jeedaan dadka haysta madhabka Shiicada ee Yemen. hase yeeshee waxay sii ballaariyeen kooxdan dhalinyarada bixinta adeegyada sida waxbarashada iyo siyaasadda oo ay ku jiraan mucaaradnimada nidaamkii madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdullah Saalax. xarakadu waxay isku bedeshay koox hubaysan sanadka 2004 markii la dilay hogaamiyahoodii Xuseen al-Xuuti, kadibna waxaa xukunka la wareegay walaalkiisii oo ka yaraa Cabdilmaalik. xilliyadaas soo jiitamayay waxay kooxdu qaadatay magacyo kala duwan ilaa aakhirkii ay qaadatay oo ay si rasmi ah ula baxday Xuutiyiinta. Sayidiintu waxay Yemen xukumayeen taariikh badan ilaa intii laga tuuray taliskii iimaankoodii ee waqooyiga Yemen sanadkii 1962. Sacdo oo ahayd magaalo ku taalo waqooyiga galbeed ee Yemen, Xuutiyiinta waxay dowladda dhexe ka fogeeyeen gacan ku haynteeda iyagoo dadka deegaanka go'doomintaas kadib ay isku tashadeen samaysteen in iyagu ay ismaamulaan.
cilmi baare Ingiriis ah oo arrimaha Yemen ku takhasusay oo lagu magacaabo Sheila Ward ayaa aaminsan in sababta kale ay Xuutiyiintu u soo baxeen ay tahay kooxaha Salafiga iyo Wahaabiyada oo saameynta ay ku leeyihiin dalkaasi ay sii korortay.